suuliga markii laga soo baxo ama muqdisho markii laga soo baxo duco la aqristo miyaa jirto ducadaasni maxaa loo aqristaa وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد دكتور أحمد أنا أبو سلامة وعبد الولي from Canada وكي سو gaartay alaabtii ma insha Allah kitaabada quruxda badnaa ducooyinka daragta badnaa adduunka aqraba marka insha Allah khayr baan ku rajaynaa aniga niyo waan helay khayr Allah ku siiyo faa'iidadoodu way ii bilaabatay ilaahay baa isiyayba ma sha Allah alxamdulillah marka saa uu ogow aniga gabadhayda iyo carruurtayda kulli waan isugu tagnay waan wadana ilaahay baa faa'iidadana siiyayba alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaalaha ilaah tasjeel meel adduunkaad ka joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa xalaqadii shanaad ama ducadii shanaad oo barnaamijkii arbaco walba iyo duco cusub duco gaaban oo aad u qiimo badan walaalayaal arbacadii lasoo dhaafay waxaan kasoo sheekeynay duco la aqristo intaanan suuliga ama muqdisho ama bathroomka la gelin sababta loo aqristo iyo faa'iidooyinkeeda waa kasoo sheekeynay maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago markii laga soo baxo duco la aqristo ducadaas maxay tahay maxaana loo aqristaa walaalayaal ducadaas waa duco gaaban oo hal kelima ka kooban غفرانك بس دعاء كلا جرت لكن ضعيف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني دعاء كلا جرت الله لكن ضعيفة واي كل علماء وافيري وإيك أو كهادلين كل سنة كون ضعيفة كديين أنا جنا سهر إذن كوش دعاء كستميشان إذن سوق جد بناي درجة أوجوهس وإني نقطة حسن نقطة واي دعاء ضعيف إذن مسوق جد بناي إن شاء الله تعالى مرك غفرانك واي معنيه غفرانك وحاوي إلهه وحان كوي ديست الدنب داف وحان اسويدي سهوليا كصبحي دنب ما ننقلين محان غفرانك أورها إلهه دنب داف ودنب داف عن كوي ديست runtii waxyaabaha waxay ka mid ahayd oo aadka u raadiyay hadaa xasuusataan barnaamij waxaan lahaan jirnay oo talaado walba aan ka sheekeyn jirnay 2 sano ka hor oo istighfaarta aan qaadanayna istighfaarta iyo fadaa'isheeda aan qaadan jirnay barnaamij talaado ahaan jirnay istighfaarta walaalayaal ina ilaahay dambi dhaaf weydiisatid waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo ilaahay loogu dhawaado runtii hadaa maanta dhihi karto astaghfirullah inta banaanka socotid dheh hakada istighfaarta waxaan ark marka waa amalka kaliya oo la sameeyo marka dambi gashid marka amal caadi sameysid iyo xataa marka wax waajib sameysid fiiri example aan ku siina qofka markuu dambi galo astaghfirullah la ilaahi uu dambi dhaafa طيب واقرتي وحيابه مباح مركان وحيابه بنانو كله شركو كله شر ميتنا على فريستي رسول صلى الله عليه وسلم شركه مركو كع ميتن كع وحودي يجي وحا اقرستا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يعني شران فديني شركه حتى هدو يشر وناقي رسول صلى الله عليه وسلم وحو كليه قفكي اقرسن واي فديغاس اخر حسر الى دام شلايتي ونقونيسا waxaa laga ibn aadana tahay inay wax si ka noqday ilaaha dambi dhaaf weydiisanaysa waxaa la mid oo kale suuliga markaa ka soo baxday wax mubaaxa gudanaysa suuliga gashi culays ku haya iska soo bixinaysa dambi ma galaysid inuu qofka suuli kale dambi kumuusan galeen bal haduu gali way asoo u baahan dambi inuu galaa laga yaabaa laakiin waa sameeyaysa bal istighfaarta waxaan ark xataa markii waajibka la sameeyo in la aqristo laba rukni kamid ah arkaanta islaamka waa weyn
markii la dhameeyo waxaana laga rabaa inaan istighfaar sameyno salaada rukniga koobaad soo maaha markii tawxiidkii tashahudka laga tago qofka muslimka laga baahan yahay inuu tukado 5 mar rasuul sallallahu alayhi wasallam markuu salaada ka baxo muxuu dhihi jiray 3 mar wuxuu dhihi jiray astaghfirullah 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 dhihi jiray طيب أنا صلاة فرضان تكذي هيس مسود جيسنين دنبي مسود جل صلاة فرضان تكذي واي استغفار عن الإيمان استغفار تمرك وحي علماء وحي تمرك صلاة فرضان تكتها واجبة سميسها لكن سيدو إلهي أريمو سميسين مايا بقول كي بقوله بس إلهي ربنا سمينين لأن صلاة مرك قال مسح مالك اللي بأديبه الله أكبر مرك تراهيد فاتح دينا أغرى الشك هذا الجران الله أكبر مرك تراهيد أذو ركوع عشان بأركيسه جسمه برا مسح هذا مالك اللي أدي سيدو إلهي ربي ساسمه مايا ما أهن مركا وحالة إلهي وقلب دان سميه قابس يجي من إلهه إيدن بداف طيب محاكله حجكو كل ركني أو كأفراد إله سبحانه وتعالى يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وحاول مركي لغا صوبحو أو مزدلفة لغا صوبحو من الله صعدوا طيب وصوبحني استغفر الله إلهي دم بدافع ويدستوا لي طيب أنا عمل عبادة بكو جرايبو سو مجيدة عبادة بكو جراي عبادة بكو جراي استغفار على أمر إنا صنعيه إذن استغفار تمركز تلو باهية سولي مركا كسو بحد المركا هاي بين إنا تراهد غفرانك إله إيدن بداف خير الله يدين سيه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وحاربنا حلقات صوت إنا كشاكين آداب تلو باهية سولي انت هذا قلن محالة ربا إنا سميسيد انت كجرتid maxaa laga rabaa inaa sameeysid marka ka soo baxdidna maxaa laga rabaa inaa sameeysid kitaabkeena oo maalin walba farxad ducooyin kaliima hatta aadaab oo ka sheekeyna oo loo baahan yahay qofka muslimka inuu ku dhaqmo oo ku amal falo insha Allah taala oo inuu arbacad soo socoto iyo aadaabtaas insha Allah jazakumullahu khayr barakallahu fiikum ilaahi subhanahu wa taala idin wixii meel adduunka aad ka joogtaan ilaahi dartiisana jeclaan fadlan ka faa'iideyso walaalaha kalena u sii gudbi adigana ku amal fal khayr Allah idin siiyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh